Yaxaasku muxuu biyaha ugu nool yahay? Waxaan ka hadli doonaa inta badan yaxaaska muxuu biyaha ugu nool yahay ee dadka qaar isweydiiyaan. Sheeko yar ayaan ka qornay. Berigii hore yaxaasku waxa uu ku noolaa beriga sida xayawaanada kaleba. Marka keynta la galo, waxaa la arki jiray isaga oo duurka dhex gurguuranaya. Hase yeeshee, sababtii uu beriga kaga soo guuray waxay ahayd baa la yiri yaxaasku waxaa saaxiib isku dhab ahaayeen bakaylaha. Saaxiib dhow ay waxay ahaayeen bakaylaha. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayuu bakaylihii wuxuu maalin joog ugu yimid yaxaaskii. Halkaas ayay maalintii oo dhan joogeen. Sheekadii iyo kaftankii ayaa la sii fogaaday ama la dheeraaday ilaa ay noqotay habeen mugdi ah oo roobna waa uu jiray. Markaas waxay isla garteen yaxaaskii iyo bakaylihii in uu caawa halkan isaga seexdo oo uu berrito gurigiisa aado. Markii ay casheeyeen oo ay kala sheeko bogteen, ayay isugu diyaariyeen in ay seexdaan. Qolka uu yaxaasku degan aad ayuu u yaraa oo labadoodaba kuma filneen. Markaas waxaa bakaylihii loo galay ama loo goglay daaradda qolka. Yaxaaskuna wuxuu soo xirtay qolkiisii. Habeenkii markii saqdi dhexe la gaaray ayaa qabow iyo roob meel uu jirba isaga yimid. Bakaylihii markii uu adkaysan waayay ayuu yaxaaskii ku garaacay qolkii. Hase yeeshee, yaxaasku wuxuu maqli waayay ama waxa uu baxsaday. Hurdo fiican ayaa u baxday yaxaaskii. Mar labaad iyo mar saddexaad ayuu ku garaacay. Hase yeeshee, wax juuq u yiraahdo wuu waayay. Roobkii wuu soo xoogsaday. Roobkii wuuna fiday. Dhaxan ayuu watay, way soo badatay. Markii uu nafta u yaabay ee uu waxa uu sameey garan waayay, ayuu is yiri dab shido. Halkii ayuu xaabo soo urursaday. Dab ayuu ka shitay oo la baxay. Inta uu laba qori isugu xaqay, dhaxantii ayaa ka kacday. Hase yeeshee, xaabadii ayaa ka dhamaatay, dabkiina ololkii wuu yaraaday. Markaasi ayuu bakaylihii xaabo kale doonay. Sidii uu kolba meel xaabo ugu soo guriyay ayuu markii dambe waxa uu u tagay ukumo caws ku dhex jira. Ukumihii ayuu eegay. Waa ukumo badan. Kaajo xun ayaa shabeelka haysay. Inta uu ukumihii soo qaatay oo uu dabkii ku dubtay, ayuu dhammaantood wada cunay. Si fiican ayay dhaxantii ugu kacday, maxaa yeelay wuu dhergay, dabkiina wuu ololaa. Markii uu waagii soo dhawaaday ayaa cagaha ka dayay oo cararay, maxaa yeelay wuu ogaa bakayluhu inuu ukumuhu uu leeyahay. Yaxaaska markii waagii si fiican u bariyay ee uu yaxaaskiina soo toosay ee uu is yiri saaxiibka bakaylaha soo booqo, walaal aragti u laaban. Waxa uu xalay ku bariyay. Markii uu albaabkii furay, wuxuu arkay qolkii ukunta oo daaradii guriga daadsan. Naxdin ayaa Ilaahay u keenay. Yaxaaskii meel kasta ayuu ka raadiyay bakaylihii. Hase yeeshee, waa uu waayay. Xilligaasi wixii ka dambeeyay yaxaasku wuxuu go'aansaday in uu biyaha dhexdooda ku noolaado si aan ukumaha loogu cunin oo ay uga badbaadaan. Ilaa maantana yaxaasku wuxuu ku nool yahay biyaha dhexdooda. Bakayluhuna waa is col oo haddii uu arko waa uu ugaartaa. Col ayay labadooda noqdeen, yaxaaska iyo bakaylaha. waa sheeko aad iyo aad u qiiro badan ama experience ama khibrad ka qaadan karto. marka yaxaaska waa ogeyd marka
waxyar aan ka koobo ama lesson summary aan kasoo koobo muhiimadda waxaan ka fahmi karnaa in yaxaasku iyo bakeelaha iyo habeentaxaas sheekadooda ay qabsadeen ay sheekaysteen ay ku barameen in markii lacalle waxa dhacaan oo kale ama ay isgarabsiiyaan marka waa ogeed in yaxaasku dhabka ma ahayn hurda ayaa u socotay ninka roob xoogan ayaa ku imaantay marka xoogii waa qabow ayuu dareemay bakeelaha wuu naxay ilaa amarkiis marka dambe wuu maqli waa u garaacay subaxii dambe ayuu arkay markuu hurdada ka soo kacay ninkii lagu magacaabay xaaskii wuu argagaxay wuu yaabay wallaahi waa wax la yaab badan inta badan aan isweydiin karno marka haddii aan intaas kusoo gagabayno yaxaaska iyo bakeylaha hadda waa col yaxaaska wuxuu yidhi biya isaga dhex noolaanaya sidoo kale bakeyluhu asagana wuxuu yidhi col oo haddii uu arko wuu ugaartaa isagana col ayuu keensa marka waa laba aan caadi ahayn marka fadlan please subscribe saara youtube-kayga Ismail Habi please subscribe saara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu 我的小宝贝儿啊，咱俩是一对儿啊，吻我一下，吻我一下，吻我一下，我的小宝贝儿啊，你再等一会儿啊，再吻一下，